xuniga haysatay dhinaca cayilka miisaankayga ayaa ahaa mid dhibigu hayay miisaankan culus ayaa niyad jab igu riday waxa uuna iga reebay qayrkay niyad jab ayuu igu riday ilaan aaminayba in aanan dunidan ka heli doonin shakhsi ijeclaada oo nolosha wadaagno marar badan ayaa waxa aan go'aansaday in aan nolosheeda wax ka bedelo isla markaana aan cuntooyinka iska yareeyo jimicsina aan sameeyo san cayilkaygan wax uga bedelo hase ahaatee mar walba aan go'aan qaato go'aankaygaasi ma uusan noqon jirin mid taabagala mar waliba waxa uu ku dhammaan jiray fashil ilaa oon isdhiibay gabadhan da'deedu markay maraysay 16 sano miisaankeeduna waxa uu marayay 300 kilogram arrinkaasi oo ku sababay in ay noqoto shakhsi gooni u socod ah isla markaana dadku ay si gaar ah u fiiriyaan maalin maalmaha ka mid ah ayaa iyada oo fadhida maqaaxi u dhow gurigeeda waxa ay kulmeen wiil lagu magacaabo Dani wiilkaasi oo runtii aad u cajabiyay isla markaana ay aad u jeclaan lahayd inay lambarkiisa hesho hase ahaatee arrinka aysan filin ayaa waxa uu ahaa wiilkani isaga ayaaba jeclaaday isaga ayaaba damcay inuu lambarkeeda helo ugu dambayna waa uu weydiiyey dooqa cajiibe halkaasi ayuu lamaanaan xidhiidhkoodii ka amba qaaday wiilkani lagu magacaabo Dani ayaa isaga laftiisa waxa haysatay dhibaatadan cayilka inkasta iyadoo dhinaca miisaanka aad uga sarreysay haddana arrinkaasi ayaa waxa uu sababay in ay si wada jir ah u noolaadaan lamaanahan ayaa waxa isku qaadeen kalgacayl cajiiba ugu dambayna waxa iskuursadeen bishii Oktoobar 2015 haddaba waqti ay ku jireen bishii malabka ayaa waxa ay dalxiis u tageen bad ku taala Florida halkaasi oo jawi ku soo qaadanayeen hase ahaatee isla maalintaasi ayagoo wada socda ayay gabadhii koftay waxayna ka murgacotay lugta arrintaasi oo ku sababtay inay si weyn ugu fiirsadaan dhibaatada ka haysata dhinaca cayilka Lexi ayaa waxay leedahay waqtigaasi markaan fikiray waxa aan yaqiinsaday in aanan awlaad heli doonan anigoo xaaladan ku sugan gabadhan ayaa waxay leedahay inta badan waqtigeena waxa aanu ku hoos qaadan jirnay TV-ga annagoo isla markaana ku hoos cuni jirnay cuntooyin aan u wanaagsaneyn dhinaca caafimaadka arrinkaasi oo sababay inuu miisaankoodu marba marka ka sii dambaysa sii siyaado wiilka ayaa dadiisu markay ahayd 27 sano waxa uu miisaankiisu kor u dhaafay 200 kilogram xaga gabadho iyadna 2 sano ka weyn uu miisaankeedu iyadna kor u dhaafay 500 kilogram muddo kadib lamaanihii waxa ay go'aansadeen in ay noloshooda ku sameeyaan isbeddel tilaabadii ugu horreysay ee qaadana waxay ahayd in ay joojiyeen bil dhammaystiran cabitaanada kulkulul iyo cuntooyinka subagale waxa ayna bilaabeen in ay si wada jir ah jimicsi ugu dhex sameeyaan gurigooda arrinka ay ku dhaqaaqeen marnaba ma sahlanayn hase ahaatee go'aanka ay qaateen ayaa waxa uu ahaa mid aan ka noqosho lahayn marnaba isma aysan dhiibin jimicsigoodana waxa uu ahaa mid waqti walba joogto ah waxa ay sidaasi ku wadaanba miisaanka jirkoodu waxa uu bilaabay in uu marba marka ka sii dambaysa hoos u sii dhaco qaybtii ugu dhibka badneed safarkeenu waxa uu ahaa bedelidda cuntadii hore u cuni jiray sidaasi ayay tiri Lexi waxay leedahay markii uu miisaankaygu 400 hoos uga soo dhacay waxaan joojinay guud ahaanba cuntooyinka diyaarka ah ee ka soo iibsano dibadda annagoo isla markaana guriga gudihiisa ku dhex samaysan jirnay cunto caafimaad ah annagoo isla markaana aad uga fiirsanayna nooca cuntada ah ee samaysanayno hase ahaatee bedeladu kuma aysan soo koobnayn cuntada oo kaliya ee waxaan isbeddel ku samaynay guud ahaanba nolosheenna iyadoo midba midka kale ku dhiirigelinaya in uu dhowro ballantii ay wada galeen haddii waqtiyadan u socono jiimta midkeen ku yimaado caajis iyo dib u dhac midka kale ayaa baraarujinayay oo xasuusinaya ballanta ay wada galeen isagoo isla markaana ku dhiirigelinaya muhiimadda ay u leedahay waxay sidaasi ku wadaanba jirkoodii waxa uu bilaabay in uu tilaabo isu bedelo ambaba se uu ka dhaco kiilo waxay sidaasi ku wadaanba muddo 6 bilood gudaheeda Lexi waxa ay jirkeeda iska riday miisaan dhan 100 kilogram inta ay ku jireen socdaalkaasi ku aadanaa bedelida noloshooda ayaa hadda wixii ku cusub kula wadaagi jireen asxaabtooda Instagram-ka Lexi ayaa waxay aragtay miisaankeedii oo si xawli ah isu bedelayo arrinkaasi oo ku dhiirigeliyay in ay joogtayso waxay leedahay maalintan bilaabay ilaa iyo maanta mar waliba oon dareemo in uu jirkayga isbeddel ku yimiday sawirro ayaan iska qaadi jiray oon gelin jiray barta Instagram-ka si ay dhiirigelin ugu noqoto dadka kale ila midka ah isla markaana ay haysato dhibaatadan cayilku maanta Lexi dadka Instagram-keeda ugu xidhan waxa ay kor u dhaafeen 1 milyan haatan waxaa xidhaan dhar caadi ah oo la mid ah dharka ay dadka badankoodu xidhaan xagga ay markii hore xidhan jireen dhar uu cabirkoodu aad u waaweynaa lamaanahan ayaa si wada jir ah waxa ay jirkooda uga rideen miisaan gaadhaya 400 kilogram haatan lamaanahani waxay u noolyihiin una xaragoodaan sida dadka kale caadiga waxayna haatan si fudud ku sameeyaan jimicsiyo ay marka hore ku adkayd inay sameeyaan iyada oo sabab u ahaa miisaanka culus ee saarnaa waxaana looga yeedhay TV showyo waaweyn oo caalami ah si ay dhiirigelin ugu noqdaan dadka kale ee haysato dhibaatada noocani waxaana soo gaadhay martisoorkii iyaga ahaan ugu qaalisanaa kadib markay Hollywood ka soo codsatay inay ka soo qayb galaan bandhig faneed ay qabanayeen iyagoo isla markaana u dhigay roog cas si ay u soo dulmaraan aad ayaad ugu mahadsantahay daawashadaada haddii uu barnaamijkan ku qanciyay ha hilmaamin inaad sii sharkeyso la wadaagto asxaabtaada sidoo kalena videoga inaad like saarto intaynu barnaamijyada dambe sugmeen doonaba nabadgelyo wixii noo channelka dadweynaha subscribe saar oo ku soo biir